Somali isku dhafan dareer iyo jilaac waa lagu jiraa mudane madaxweyne halkan kuma soo koobi karo dhibaatada uu soo maray ciidankan oo muddo dheer xareesnaa waxaa soo tababaray wadamo kala duwan sida Kenya, Ethiopia waana ciidamo ku soo firfircoon howlgallada ay ka hortagayaan cadowga ummadooda waxay hadda diyaar u yihiin in la qalabeeyo si ay uga gutaan waajibaadkooda qaran si wax tar leh howlaha ay u fuliyaan ciidanka ilaalinta nabadgelyada ee midowga Afrika ay fuliyaan inay iyagu qaataan kaalintaas oo ay la wareegaan ayay diyaar u yihiin ciidanka mudane madaxweyne askariga aan ku amaanayno mas'uuliyadda ilaalinta shacabka amniga iyo sharciga waa inuu xuquuqdiisa helo si aan u guul gaarno la dagaalanka argagixisada si aan u horumarno dhammaan ciidamadana iyo waddankanaga dhammaantiisa soo dhawo madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على امر الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحنا جمهورية فدرالك Soomaaliya iyo waftiga la socdo ay ka mid yihiin taliyaha xoogga wasiirka arrimaha gudaha wasiirro badan xildhibaano iyo senatarro inta dowlad goboleedka Jubbaland saraakiisha saxaafadda kulligood salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaa farxad weyniya in mar labaad aan madaxweyne labaad ku soo dhaweynayo mikrofoonkan oo lagaga hadlayo halkan jaamacadda Kismaayo iyo ciidankii isku dhafka ahaa ee ugu horreeyey oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaashaandhigga mudane madaxweyne sida uu taliyaha xoogga iyo taliyaha qaybta 43 sida uu ahaa heshiiskii in la qaybaha loo dhiseeyey ay ka hadleen ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaf ah waxaan u malaynayaa maanta diyaar garowgooda iyo ciidannimadooda hortaada indhaha indhiinay ka muuqataa ciidankani cadow badan baa ku xeeran marka Jubbaland la yidhaahdo waa maanta meelaha ugu culus Soomaaliya ee madaxa maska madaxiisu uu yaallo shabaab madaxoodu deegaankan ugu badan yahay masna madaxa laga dilaa raggii ka dili lahaana waa raggan madaxweyne iyagina waxaad moodaa waralanimadu inay ku dheeraatay 2005 ilaa hadda inay sacaboolay noqdaan oo kabaha iyo direesku ay ku kor dhamaadaan oo ayna hawl gelin oo maalinba magac loo bixiyo lamanaxa iyo idil abaydaa iyo yacni intaasoo magac ay maanta ku qaadaan oo maanta aan la odhanayn ciidankii SNA baa intay howlgal u baxeen meel tegey waa wax aada iyo aada looga xumaado melihi anigu dowladdu way kharash laadahay dowladdu waxyaalo badan bay wax ku bixisaa islaamba waxaa laga sheegay ninka bowladaala gabadheeda kama dhali waayo dowladda federaalka ah ciidankaas way hubay u weyday oo waxbay u weyday aniga igama dhaadhacayso ma aqbalayno ma aha wax suurtagala annagoon dhaqaalahaynin oo waxba gacanteeda aynu ku jirin ciidamaan tababaray hubkoodii baan soo jaqabsanay maanta waxaan u hubayn laanahay kuwa tababarka ku jireed u tegi doonta ee kale kuwaanaan la hubayni way nagu adag tahay in la hubeeyo oo maalin walba ciidan kale hortooda lagu dhiso mudane madaxweyne waxaan kaa rabnaa gaadiidkii loo keenay wakaas hal baabuur Jubbaland kama inay isticmaali maanta dowladda federaalka waxaan uga joogaa taliyii xoogguna waa joogaa madaxweynehina wuu joogaa war ciidankaas muddadaasaan wax u keenaynaa waxaan isku soo guridnaba maanta waan u diyaar garoobaynaa ciidanka waa la hubeynayaa
iyo maye intaad kala celcelisaan Jubbaland dib ha ugu noqdeen oo idinku u tashada labadaa jawaabood baan ka sugaya dowladda federaalka. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه guddiga ila socda wafdiga ila socda oo golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal iyo xildhibaanada Jubbaland iyo wasiiradooda guud ahaan dadweynaha halkan jooga iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan aad aniga iyo wafdigayga aad noo soo dhaweyseen wasiiradeeda iyo xildhibaanada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen iyo sida wanaagsan ee reer Jubbaland oo gacmaha furan oo qalbiga furan oo waaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen oo farxadda leh waan kaaga mahadcelinaynaa. waxaan kaloo aan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii hawsha baahsan oo wanaagsan oo aad magaaladan ka qabatay oo ugu horeyso nabadda inaad nabadaysay oo warbixinadan helayo ay tahay magaaladan in la socon karo qof walba mas'uul ah meeshu roo mari karo mas'uuliyiintu inay xafiisyadooda ku yaalaan in magaalada degan yihiin iyagoo la waardiyeeyay runtii taas waxaan oran karaa waa horumar aan doonayno inaan higsano annagu haddaan nahay dowladdii federaalka haddaan shacabka reer Kismaayo iyo reer Puntland iyo Jubbaland raalli ahow hilmaan hadal kuma jiro iyo mas'uuliyiintaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan madaxweynaha Axmed Madoobe sida wanaagsan uu hawsha hufan uu maxaan ku raahdaa maamul goboleedka ama dowlad goboleedkan ugu hayo in gacan aan wada siino annagana wixii karaan keenaa haddaan nahay dowladdii federaalka ka hakarmayna insha Allah hadduu Ilaahay yidhaaho. halkan maanta waxaan u imid booqasho aan iraahdo salaan iyo inaan helo warbixinta magaaladan ka jirta iyo gaar ahaan ciidamadan qalabka sida oo hadda kulley warbixintooda aan hayo oo ay tahay inay dhamaysteen tababarkoodii muddo 1 sano iyo bar ah ayna yihiin ciidamo isku dhafan oo u diyaarsan inay dalkooda difaacaan cadowgooda ka difaacaan runtiina aan ognahay inay jirto duruufo adag oo meesha yaalla oo xaqiiqo ah oo aan doonayno inaan daboolno hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin haddee hawshu ma wada xuma waxaan leeyahay mushaharadiina waa hesheen 4 bilood iyo 5 bilood hadii ugu dambeysay iyo wixii aad u baahneedeen hadda waxa weeye inaad howl gashaan oo aad heshaan qalabkii iyo agabkii aad ku howlgal lahaydeen si aan uga hortagno cadowga horarka ay ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda iyo horumarka u diiday waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin Soomaa diyaar ma tihiin annagu haddaan nahay dowladdii federaalka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxa idinka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhamaystirinaa insha Allah inuu Ilaahay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan aaminsanahay markaad heshaan wixii aad u baahneedeen qalabkiinii iyo wixii idinku tababaray waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan cadowga Soomaaliyeed oo horumarka u diidayna inaad ka hortagaysaan aad u diyaarsan tihiin soo ma diyaarsanidin ma u diyaarsan tihiin annaguna waxaan ugu ballanaa inaan idinkeena qalabkii iyo hubkii aad u baahneedeen insha Allah Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya Allah ha nooleeyo khayr baa idin rajayay mac salaama.